جناية qayb waxa ku jirta qof ilaahay xoolo uu siiyay oo xoolihii aan u aqoonsanin inay nicmo ilaahay yihiin oo ilaahay inuga mahad celiye oo arkay awood asaga uu leeyahay soo doonan uu ka yeelayo inuu hadda haystana macnaheedu ay ka dhigan tahay inuu weligiisii haysan doono markaas waxa soo qaatay nin sidaas ah beer buu lahaa beertii ayuu galay markaas quruxdeeda intuu la yaabay ayuu quraanku wuxuu inoo soo tilmaamay sida uu ninkaasi xaalkiisu ahaa إلهي وحول مركا ودخل جنته نكا أسقع وحول قال بيرتيس وهو ظالم لنفسه بيرت مركو قال هنا وحمقه به أساس ظلمنايا لأن قفك دو قرنوا نعمة للسيئي هنا نعمتها لقوا امتحامها أسقع يا إسقافنا أو نفتيس الظلمنا أو يعني وهو ظالم نفسه قال وحول ما أظن أن تبيد هذه أبدا ما لينا barwaaqadana inay iga dhamaanayso ilama ah waxaan soo qaadanay marka aayadaas qaybtaas ah hada beerta bedelkeedu waxa bedelay haduu ninkaas beer intuu galo oo yiri tani ma dhamaanayso madaxda markay madaxtooyooyinka galaan oo ay arkaan waxa yaala iyo sida ay tahay iyo ciidanka ku hareeraysan iyo sida yaani ay say rabaan u yeelayaan haduusan ilaahay ka cabsanayn qofkaasi waxoogaga isku aadan markuu arko sartiisa markuu galo sidii oo kale wuxuu leeyahay ma adunnu an tabida hadhihi abada tan inay dhamaanay ila ma ah tusaale waxaan soo qaadanay marka oo isbuucan taagnaa maxaa taagan waaye ninkii odayga ahaa ee Bashar al-Assad dhigi jiray iyo aabihii oo ka sii horeeyay 54 sano ayay wiilka iyo aabihii wadanka xukumayeen ummadii meesha deganeed ee sunniyiinta ahayd siday u galeen waa ogtihiin oo hadda markii xabsiyada la furay waxa loogu tagay sida wax loo ciqaabi jiray bahalkii la sameeyay oo qofka intii la seexiyo korka laga saaray bir aad u weyn oo intay korka laga saaray wixii dheecaan oo qofka ku jiray intay ka dhamayso asaga oo xaanshi oo kala cadaaday yaa meel xaanshida lagu gubo ayaa lagu ridayaa dib damana looma arkaayo saasa dad loo ciqaabi jiray dad baa waxay xirnaayeen 40 sano ka badan kuwa intay waasheen يا كون مركو بناك وصو بحي waxa ugu dambeysay xilligii uu joogi jiray Jamaal Abdi Naasir Jamaal Abdi Naasir goormo aha markii la soo daayay ayaa wuxuu leeyahay Jamaal Abdi Naasir ma soo daayay Jamaal Abdi Naasir abu jooga adduunka maxaa isbedelay xagee la maray yaani dadkii oo nool ayaa waxay noqdeen amwaad dad intoo kale la mid noqdeen kuwa markii loo tagay oo haween ah oo ilaahay soo baxa yaani albaabku waa idinka furay ilaa moogtay warna ma dhageysanayaan meel la soo maraayo isbedelka dawladda ku dhacaaya ma ogo god mugdi isaga jireen albaab baa laga soo furay soo baxa way rumaysan waayeen soo baxadana inay tahay adduunku intuu isbedelay la sii deynaayo oo xabsi ay ka baxayaan way rumaysan waayeen markaas isku sii dhajinayaan xabsi way leeyeen ma bixi kar waxay u maleeyeen wali xukunkii adkaa inuu yaalo marka halkaas markay joogto soo kuwa badan oo maanta madax ah ma taagno markay sartooda galaan ما أظن أن تبيد هذه أبدا تاني إني دماني سئلة معها أيضا لما تورت مالنا تسميت كم يظهر تحت مهرت أنا كوكا لو صارقني لكن ما تا ميد محاود بيه آخر ورك هذا محاود بيه كي هذا اللي سيو ذا لير مرك هذا أسبوع عن وحتى الدون كنا نكون هلا يا سوريا محاك داعي يجوش اللي جاري ودن كاسي قيمها أولها يأود أولها يشعب الصومالي سوء جعلها وحتى مركي لا تجو صومالي مركو تجو يعني السيد واسع يعني ummad say u ahay on baa lagu habsaday markaas meeshaas la gaarsiiyay fawaartii soo galeen khalaas daalimiinta marka soo qaad tusaalayaan kuwii hore nin la jiray Namruud boqor buu ahaa sidan oo kale hadda boqorada awood u sheeganayaan awood u lahaa Nabi Ibrahim xilligiisu ahaa halkaas waxaan rabaa inaan fahamno fikir waxa jira diinta islaamka aan shaqo ku lahayn oo banaanka leenooga keenay oo la soo dhaxgeliyay oo ah diintu madaxda ama boqorada ama xukaamta say doonaan inay iska yeelaan qofkii diin rabana haduu masaajidkiisa isaga tukado oo faraha uu ka qaado kuwaasi inay diintu caadi iska tahay oo inay diinta iyo maamulku isdhaxgalayeen shaqana isku lahayn oo fikirka la yiraahdo almaaniga oo dhahaaya faslu diin aan dawla diinta iyo dawladda waa in la kala saaro oo meesha dawladda ay joogto hadii diin laga akhriyo oo la yiraahdo ilaahay ka cabsada xumaatada iska daaya ظلمها سميننا waxay dhaayaan
adiga haddaad wacdi u baahan tahay masaajidka orod la aad ma meel waxaa jirta mamnuuc ka ah in ilaahay la isku xusuusiyo soo diinteennu ma aha ittaqi llaaha xayثu maa kunta meel kastoo joogto marka fikirkan ah shaqo iskuma lahada waa ka ummadda islaamka dib u dhaca ku riday ninkan la yidhahdo suuriya faysal qaasi la yidhahdo yaa wuxuu yidhi kuwa waxay dhahayaan yidhi alislaamiyuun nimanka u dhaqdhaqaaqa islaamka iyo dhaqdhaqaaqada islaamka yascawna ila sulda xukunkay rabaan xukunkay u soo ordaayaan saasay dhahayaan ay ku dacaydaynayaan markaas wuxuu maxaa idin weydiiyey hal alcaskaru walmuluuk askarta afgembiga samaysa ee militariga ah iyo boqorradu ayagu hal yascawna bayna safa walmarwa ayagu ma waxay sacayaan bayna safa walmarwa socdaan miyaa إذا كان الإسلاميون يسعون إلى السلطة أيهم حقيقي جوجان هل يسعون بين الصفا والمروة مصفية مروة حردان أيهم سو أيها دتك الدلاء دتك الدعاء دتك الظلمية أيها يا أقري إن الحكم كأيها أهلا دتك كلنا أي وديدان ودنك صلى ما ولا لها دتك صو ودنك ما ولا لها كيف فكر كيس إسلام وكقطمه يكي وفكر كيس واحد وكقطمه هذا يقولين حتى إلا ترتمه وحبي أهلا الله حتى ما قلنا ترتمه وحيتانين دون تنجا وضينا haddii naloo diidana dadka waxa saaran waxaan ku ridaynaa badan ku ridaynaa waayahay boqolkii sano la soo dhaafay caalamka islaamiga xukumayay military boqorro cilmaaniyiin ayaa xukumayeen ummadda islaamka maanta meesha ay joogto ka waramasay tahay ma hormarsan tahay ma hormar baa la gaaray kuwa marka raba inay dadka ku sii hayaan takhallufka iyo dabadhifnimada iyo gaala daba orodka iyo kuwaasi markii la waraa naga leexda oo thuwaat intay soo kacday dhawaan naga daaya wadankan wax ku leenahay dulmi ma rabno ciizatu nafsi aan rabnaa wadankeena horumar inuu gaaro markaas hadda waxay soo deynayaan ra'iisul wasaaraha hadda Suuriya loo magacaabay ee ku meel gaarka ah kalimooyin uu hore u jeediyay ayay ku soo celcelinayaan oo kaga hadlayo sheekh al-imam al-shahiid Hassan al-Banna muassis jamaacada ikhwan al-muslimin hada loo soo daliishaday ayay leeyahay hadalkaas soo daliishaday soo noqon kara ra'iisul wasaare ninkan ikhwaan waaye وإخوانكم بني آدم ما هم يعين معركة كسر دعان مسؤول كسر بحن سوي له شو ذي معه بري يوم مصاريده أي إخوان المسلمين كعذاب الجيران وحل قاصره وجمال عبد الناصر يا كوم مصاريده كمان وحيته السودان مركز وحيته سن فيلشي صدق كسر له عقابه مركز لسان عقاب سان أقل سين حقه وسون دواني حبسية حق الله عقابه السودان توادد قلب وناكسن نحريسته كبدن تعذيب كنوع عاص وكله قف ولا الكوضة إن سيد هذا مثلا سوريا كان عذاب وكله قف لفاريو أما دب لجوريدو يعني قلب جوده ديدا مركي فيلاش يصير سار عن لون قلاية سانو عقاب هذا وحكته واكيد حكم كهستي أي لتلينا يعني لين كون اسكفوا جيه مركز سوحوري أليسوا السودانيين وحنا ويدوري ضد كان عليه سانو عقاب السودان ما هم يا مع دب بنانك كده سو ولا لهن معه